abiya tani intii uu xilka hayay ku dhawaad dhowr iyo 10 jeer iyo afgan bisheegtay in lagu sameeyay marar waxba ka jiray oo waxyaabo cad baa jiray mararna isaga sameeysanayay marka jilin bay ahayd markuu dad inuu laayo rababa iyo inuu dad xilal ka qoro iyo inuu baraayo qasaba afgan bi uu sheegtaa afgan bi markuu sheego oo markuu rabo inuu wax fitagadiyo markuu ciidan kumanaani meel ilaalinayaan 50 nin waxa ka qaadaba iska yare 50 nin oo hubaysan oo kaniisadii ku jiro oo waliba hal kaniisada aan ku jirin iyagii hubkoodiiba yaa la soo bandhigay dawladda soo bandhigtay marka markasta oo la weeraro abiye oo afgambi lagu dayo axmaara ka dambaysa axmaara baana weerarta cidda waxay saasi wax maar soo tikray inta ay midna isdagaalayn inta ay tumina tikray iswada waliga tikray bay afgambi munadi tikray afgambi kuma dayn afar afgambi kuma dayn Soomaali afgambi kuma dayn oramo soo ku ka dhashay ma soo ku dhex tagay ma soo caasimada ku wale ma waligood afgambi kuma dayn qoladan maxaa ku gaara marka waxa ku gaara qoladani dawladda leedahayba Royal Modern Homes waxa aad ruculaysood waa soo rafaadaba raasmaalka dunida iyo rugta lagu nastay loo riyaaqay waa Royal Modern Homes waa raas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda markasul yaqiin lil qur'aan al kariim wa culuumihi maraakiistu kala mudan markaska yaqiin macnaha ka garo waa madal la mahadshay waa meeshaad rabteen muddo wada sugayseen mawla idinku simee ma sha Allah dhaha markaska yaqiin oo Nairobi ku yaala wuxuu bulshada ogeysiinayaa inuu u soo kordhiyay qayb online ah oo lagu barto xifdinta quraanka kariimka hingaada carabiga ee Soomaaliga ka saxida carabka tafsiirka quraanka kariimka ducooyinka axaadiista iyo mutuuntii kale sida fiqiga waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada shashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان وارق داوديال كسر دواد برنامج كان واسطه سوغا دهانيسان كاربردا تي في ار تي في يجي جي كيبل برنامج قيب سنه دو بها ودلو قاده انت او سعود waxaan ku eegi doonaa Ethiopia oo la sheegayo in uu ka dhacay afgambi dhicisoobe hadaba arintan yaan eegi doonaa qaabka uu wax u dhacay dawladdu ma ka hadashay iyo waliba cidda soo mareegtay afgambiga dhicisoobay ama fashilmay ee wararku ay sheegayaan in uu ka dhacay gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa waxa la jooga Cabdiraxmaan oo isha ku haya arintan waxaan ka weydiin doonaa inta barnaamijka Socod way baha wadi loo Cabdiraxmaan soo dhaw wandhawahay waata Ethiopia bila ka hor marba dawladda ay sheegtay inay fashilisay afgambi la doonayay in xukuumadda Abiy lagu afgambiyo shalay haddana waxa soo baxday war ah in mar kale isku day kale oo ay sameeyeen kooxo doonayay inay afgambiyaan dawladda in la fashiliyay sida wax u dhacay midan shalay kuwii hore way ka duwan tahay waad maxay uga duwan tahay abiya tani intii uu xilka hayay ku dhawaad dhowr iyo 10 jeer iyo afgambi sheegtay in lagu sameeyay waata marar waxba ka jiray oo waxyaabo cad baa jiray mararna isaga sameeysanayay marka jilin bay ahayd markuu dad inuu laayo rababa iyo inuu dad xilal ka qoro iyo inuu baraayo qasaba afgambi uu sheegtaa afgambi markuu sheego oo markuu rabo inuu wax fitagadiyo marka dad maagaya waxa maagaya inuu wax khariba rabo dhanba afgambi uu sheegaa afgambi aa dhacay buu dhahaa baraayo dhici rabto dhahaa ana la igu socdaa buu dhahaa adduunku roga marka qola marka loo xiiraya marka iyada afgambigani laakiin kuwii hore uu ka duwanaa waata ninka Abiy ahaa godba biyo ugu galeen xogaa waxa weerartay qolihii hadda diimi kuwa kaniisadii yaa galay ciidamo fara badan oo abaabulan oo kamid ah faano oo waxa jiray jigjiga ee meeshii Addis Ababa dhexdeeda iska abaabulay waxa diinta la yiraahdo dhan xamaara gacanta ku haystay diin gaalaad
أول هري دينتي قالوا دن أحمر كويس قعنت هو كان يصده أحمر أفك حلو عابده أحمر بوها waxa ugu malmalqna diinta wax ugu qornaa waxa ahayd af axmaar buu ahaa qaysaska diinta maamula ee dadka ku saarsaday kaadana axmaar ay ahaayeen kaniisad kasta ninka ka dhawaaqan axmaar buu ahaa halwaa uu dhaxgal siriyo kacdoon xun baa ka dhacay inuuna ku noqonin iyo waxa ismaysaa kacdoon oromo marka waxa jiray kaniisadaha iyo diinta sidee axmaar wakiil nooga noqon ما لوقتنا إلها عابديسان فحمار موينا في أرماء أنا قوني هي أرماء هذا عابديسان إله وأيضا مسلم نقول إنه قالتين واحد عابديسان أحمر كوية قننا في صماء في أرماء أقوني هي أرماء كعدو كودي جوهر محمد بس إذا مريد أرماء ويك على مرك حيدا إنك أنا عابدين أفكرنا أرمك يعني كان صدق كذا واقع قلدي تكرار إنه حيدين أف أحمر ضمبه وأنا كنيستنا وقت واقع ما هي قلدي مرك أحمر هذا حيد يأبي أنا ويكلا دنتين أحمرية أبي مرة ده يكلا دنتين ماشي كلية أحمر دولة ولا جساري أجازمياش ولا جساري سركيش عيدا كلا جساري ملك استال جساري أجسوا ولا جسفين هل قلا ولي لا جسفين كنيسة ده كنيسة دي مرك والله صدق حولي كدواد عيدا قيسسكي كنيسها أو كنتم قارية أو هب كودي وطا أو كنتم هدي عيدا كمناني مالا إلالنا يان كنتم نين وحكا قاعدة بس كياري كنتم نين أو هبايسان أو كنيسة دي كتيرو أو ولي بحال كنيسة دي كتيري يجي هب كودي يالي صوبا نيجي دولد صوبا نيكتي أو بهنت دولد أي صوبا نيكتي محل كله لها مركب أفجنبي بي ها قيب كماليجي يان بالي raggaas iyaga ah wad balo bumbuniye iyaga qalabkoodiiba waa la wixii waxa la yiri marka ragani arsabay isu diyaarinay waa la bumbuniye kaniisadihii marka faragelin qaawan yaa lagu yeeshay dhaqan xumada iyo yaani khiyaanada Ethiopia waxba kuma aha inta iyadu dad ka sameysay inay kaniisada la xagalsay si ay u weerarto oo kaniisadahan ugu xiirto laakiin hadda raggaas la soo qabto wajigoodii la soo dhigay iyo hubkoodii iyo wixoodii raggaas waxa marka afgambiga iyo ka qayb ahaayeen ragga waa la xiriiray rag fara badan oo saraakiil ciidan iyo kuwa sirdoon iyo wixii ahaana iyagana waa la guray ku dhawaad dhowr boqol oo maamulkii shaqaalay dawladda iyo qaysaskii iyo kaniisadihii iyo dadkii lagu diri karo dhan maanta way xiran yihiin hubkaas la soo bandhigay isaga yaa marka ku lug leh ama yaa soo maleegay oo حوي يدوك الريحي وليجيبه وس نكن أبيع أفجم كستلوق هذا حمارة سو ملكتي أفجم كستلوق هذا حمارة سو ملكتي أما قبل كحمارة هذا الجسوري حلي واحد جرت أفجم بيجو أدوينا قبل كحمارة هذا لقى بالله بعد السمن لقى بالله بدحوينه حمارة هذا اللي دلي هو كان كده بتقولي حمارة هذا اللي دلي rag fara badan oo saraakiil ah oo maxaan ku dhahay axmaara xukuumadii dhammeed axmaarada in baxardaar la qabsado lagu sigtay adsaba dhaxdeedana waxa jiray chain disan oo taas la shaqeynayay oo iyagana waa la fashiliyay oo Cornel Abiy uu yiri oo iyagana la qabtay oo la laayay oo wax fara badan oo dhiigooda lagu xalaashaday waa markii uu horeysay uu dhabdhabta ahaa wixii ka dambeeyay oo dhan laakiin jilleen bay u badnayd iyo in dad dhiigooda lagu xalaashanay marka markasta oo la weeraro Abiy oo afgambi lagu dayo axmaara ka dambaysa axmaara bana weerarta cibda waxay saasi waa axmaar soo tikray inta ay meel isdagaalayn inta ay tusmeen tikray iswada waliga tikray bay afgambi munadi tikray afgambi kuma dayn afar afgambi kuma dayn Soomaali afgambi kuma dayn oromo soo ku ka dhashay ma soo ku dhax tagay ma soo caasimada ku wale ma waligood afgambi kuma dayn qoladan maxaa ku gaara marka waxa ku gaara qoladani dawladdan ay leedahayba dawladdan ba iyada ale dawladdan ay leedahay inay ka maqan tahay way aamini laadahay waxay aamini laadahay in dawladda Ethiopia la yiraahdo oo dhisan inta iyaga ka maqnaato ay oromo maamulato way qaadan laadahay way la qalaadahay xabad iyo afgambi iyo sixir iyo faal iyo habaar wax ku qaadan kasta bay ku qaadan kartaa
tallaabo kasta dawladda ku qaadan karta axmaaro way ku qaadan taa bedelkeedii iyadoo eedsaba waxa ka wado gobolkeedii waa la rogahayaa oo dagaalaha ka socda oo futagembiga ka socda oo maanta axmaaradii baroordiiq faana ahayd geeri baroordiiq caadi ah yaa u socota sargaal sare oo lafdhabar u ahaa dagaaladooda ay kula jiraan dawladda yaa duqeyn lagu dilay ciidamo fara badan oo meel ugu urursanaana daroon baa lala dhacay axmaaradii marka caawa geeri wada taale muusigii waagi ma la sidintay la daarayay ee ulululululu ah kii oo wada daaran ululululudi baa wada daaran waatay dawladdu ma soo bandhigtay arrintan hadda afgembiga fashilmay la sheegay abiyana uu ka hadlay warbaahinta dawladdana waa la soo bandhigay iyo weliba aad loo buunbuuninayo laakiin sida dadka loo gumaaday ee loo xidhxidhay caad looguma faahfaahin waxaa la yidhi 50 nin oo kaniisadaha la shaqaynayay oo iyaga iyo hubkoodii afgembi ku howlanaa yaa la soo bandhigay iyaga qoryahoodii kuwaasay warbaahinta dawladdu soo bandhigtay qolyihii wax qoraya axmaarada iyo oromada iyo laftikooda way ka hadlayaan baa iyaga laftikooda arrintan aad bay u buunbuunayaan dawladda waxaad moodaa inay ka badan yihiin oo ka dheeraynayaan activistayaashii oo aad moodo inay cadho kaniisadahan u qabeen oo kiisa kusii buuxinaya inay xaqiijinayaanba dawladdoon aad ba u xaqiijinay inuu afgembi ahaa activistayaashii sii xaqiijinaya afgembigaa dhacay ee dhicisoobay ee kaniisaduhu maamulayeen ee kaniisadooda ka riixayeen ee kan ahaa waxaad moodaa inay dabada ka riixayaan qoladaas dhiiqada lasii gelinaya faana qayb intee lag bay ku leedahay axmaara waa faano axmaara waa labo faana waa axmaara waa faano miya haaho axmaara waa labo waa qolo b ah oo hadda isqiirtay oo hadda baaba'day oo aan tabar lahayn oo dawladda la shaqaysa oo intii hadda abiya uu joogay madaxweynihii 12 baa la maraya ee axmaara loo magacaabo intaa yar tabarta yar waa b dawladduna weji uma hayso axmaarana weji uma hayso faanana maba arag karto in yaroo silicsan waa b inta kale ee axmaaro ay shacabkeedu wato waajibada faana marka dawladdii baan haddana is arki karin dhuunta isu galeen duqeymaha lagu wadaa dagaal baa lagu wadaa gudaha ah marka hore dawladda iyaga ka gacan sarreeyay hadda laakiin shalay wixii loo gaadho waxaad moodaysaa in iyaga la jabiyo oo duqeymo mar kastoo caasimadda la sigo baraqdaar xun buu kiciyaa oo turkigu uu siiyey baraqdaartaasaa marka nag ka dhigta sokil lawala damiye niyaho waa ugu daaray haddana mooji meelo kaga shaqeeyay baraqdaarta shalay dad bay laysay nag baa ka dhigtay baraqdaartaas unbaa marka Addis Ababa ilaalisa wax marka ilaalisa wax kastaba tikri hadduu soo gal baraqdaarta ma ilaalin canfaradiis haddii axmaar soo gasho qolo kasta oo soo galaysa ciidan hadda Ethiopia oo intuu lug soo galo oo iska celiyo oo cadow iska difaaca ma jiro waa in marka baraqdaar ayna qoladana dili karin oo haddii xataa lasoo ridan nin saaran uuna jirin lagu laayo oo daroon ah daroontaa bes yaa nimankii gumaaday waata abii maadaama tan iyo intii xilka uu qabtay waxaa umalan afgembigii ugu horreeyay uu sheegay in la isku dayo wuxuu ahaa kii askarta madaxtooyada ee uu buush abka la ciyaarayay intii ka dambeysay dhowr jeer hadda bila ka hor baa dhacday hadda tan waatan hadda la sheegayo afgembiyadan marka faraha badan ee kolba abii uu leeyahay waa fashiliyay oo waxa isku day waxa la doonayay in dawladda lagu afgembiyo inta in la way socon karaan xageys ugu dambeyn doonaan ilaa intuu ama ka dhiman ama uu laga afgembi way soconayaan waayo dad aan is ogolayn baa meesha jooga dad aan is ogolayn hadday joogaan abiya lama jecla si kastuu ku tegi karaba waa lagu eriyey marka way kula dagaalamayaan siyaabaha uu ku tegi karay marka mid tahay afgembigu intaa waxaa u dhex socday dadaalada kale ee kicinta shacabka iyo dagaalada iyo abaabulka jabhadaha iyo orodka iyo marka wada kasta oo abiya lagu lug bixin karo axmaara way isku day ilaa intuu uga suuragelay ayoolkooda ka gaadhayaan abiya ama la afgembiyo dhimay ama wadanka ka tag ama axmaara baaba'day weligood saanba isaga lulanayaan midkoodii reeya mareerka waxay maxaa ka jira tay ku-xigeenkii faanada in la dilay waa sargaal sare taliya ku-xigeenkii ma aha sargaal sare oo ka mid ah jabhadda faanada oo dhabar adag ahaa yaa baxay ninkaas geeridiisu aad bay u saameysay faano iyo qolada axmaarada oo dhan guri aan caawa laga ooyeyni oo axmaara leedahay wuu yaryahay ninkaa aad bay ugu go-een waana ragga baraqdaartu leysay
raggan daroonku laysay yuu ka mid yahay rag fara badan oo kale oo ciidankooda ah yaa iyagana la laayay marka ciidankan axmaarada ee la laayay ee jabhadda ah iyo kuwan way fashilmeen leh wixii lagu daray kolkii la isku daro axmaara 77 aad u madow buu ahaa toddobaad ayna jeclaysanin oo ayna nasiib lahayn yuu ahaa toddobaad marka labada dhanba ciidankoodii magaalada ku jiray ee kaniisadaha soo dhex raacay iyo ciidankoodii door ku jiray dagaalamayayba gacan xoogan ku dhacday buu ahaa abiyoon inta badan hoodo badnayn maalmaha hoodada iyo isagana u ahayd oo uu gacan adag gaadhsiiyay cadowgiisii uu la dagaalamayay aad u maasantay adiga mudan wahag qodobkan intaas ku soo gabagabaynaa daawadayaal Ramadaan Mubarak ayaan idin leenahay tan iyo kulan dambe nabadgeliyo ubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar Meta Tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli Meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro Meta Tutoring Meta Tutoring waa iskuul habaysan loo xanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan Meta Tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna carruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homework hadduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale carruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culumta islaamiga عشان يعبدوا على الكداية وعروتنا لقارها إذن كعجبية وحفظ فاينتاس دير كلا حرير نمبر كشاشة دكا موضة